waxaa maalmihii ugu dambeeyay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ka socday shir ay soo qaban qaabiyeen mid kamid ah beelaha dega gobolka Awdal iyadoo isla maantaba shirkaasi lagu soo gabagabeeyay magaalada Boorame lagana soo saaray go'aano kala duwan oo la xiriira sidii loo xoojin lahaa iskaashiga iyo wax wada qabsiga iyo sidoo kale horumarka beelahani shirkan ayaa waxa lagu dhisay gudi gala dhexe oo ka kooban 42 xubnood oo isugu jira xeer beegti waxgarad aqoon-yahan siyaasiyiin kuwaas oo ka shaqayn doona sidii deegaanada beelahani looga horumarin lahaa dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidii loo unki lahaa gudi fulineed oo beelahani matasha kuwaas oo xoojin doona wada shaqaynta beelahan iyo xukuumadda iyo sidoo kale sidii loo barbar istaagi lahaa musharaxiinta xisbiga kulmiye ee doorashooyinka soo socda haddaba ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay mudane Maxamed Saciid Guuleed oo ka warbixinaya qodobadii ka soo baxay shirkani isagoo na faahfaahiyay marka waxa weeye waxay ka raacsan ila sameeyay iyo hoosaad kale oo ay gudida siyaasadda gudida haweenka gudida dhalinta gudida haweenka iyo gudida ومثل ولي لقيت لي أنا هو أفريقيا كاس هي 49 واحد يكون هو يعني 73 صدقت أفريقيا كاس هو ولا هذا هي دقنك بينها محل عسوي haddaba inta ay munaasabadani socotay ayaa waxa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay odayaasha dhaqanka beeshaasi iyagoo soo dhaweeyay go'aamada ka soo baxay shirkani waxaanay ka warameen إننا والله شقينا وكنت ناسا مضوفر سننا سداد ديال موتي وعن يا إذا كعطينا يا إنت مان بيران مع العسى إلا هو ولا عرفت إنه يحب الحكومي ورانا أيوة هاي ويا علي وقول يدوار هم طريقين يا شركة إستغاثة يا إلهي بجلي سيئات ما لقوكم يا أنا هري ودعين وكسو رجل بلا مع العسير إلي ما دعمين وإسكوبي ما دين يوم أول مدن مكاءات أسترهين وانا ما جنبي sidoo kale shirkani waxa goobjoog ka ahaa siyaasiga caanka ah ee lagu magacaabo Axmed Xaaji Daahir Cilmi waxaana uu madashaasi ka yiri madaxweyne dowladda nooca ahaa markii ku dagaalamay in madaxweyne leeyahay amsimo ayaa maanta waxaa leeyahay madaxweyne ku xigeen maadaama una nin madaxweyne sheeganaya aanu ku jirin beelaha degan awdal iyo salba waxaa fadhiya madaxweyne kursi maanta ku fadhiya oo jooga oo tarabkiisi labaa haddii uu madaxweynihii kale uu yidhi maaragtay anugu waxaan ka fadhiisanaya waxaan leenahay war toogaan leenahay walaahayo maanta annaga u baahan kusoo wada duubo intii shirkani socday ayaa looga duceeyay dadka ay abaaruhu ku saameeyeen gobolada bariga Soomaaliland isla markaana bulshada loogu baaqay sida ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka loo fidinayo dadka ay abaarahaasi soo barakiciyeen ee ku sugan guud ahaanba deegaanada gobolka Awdal waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Boorama